السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا صاحب يال ميل البادون كاد كجوكتان isku soo laabasho wanaagsan waqti aad u dheer ayaan kala maqneen waxaan rajeynayaa sidaan kugu xiisay si lamid ah inaad igu xiisteen hadda iyo wixii ka dambeeyana waxaan rajeynayaa inaan si fiican iskula jaan qaadi doono waxaan idin hayaa filmo aad u qurux badan oo aad u kala duwan sidoo kale waxaan idin soo deyn doonaa Sebastian asigoo dhameystiran insha Allah haddaba waa tahay maanta maxaan idin hayaa waxaan idin hayaa qiso aad u xiiso badan oo aan idinkugu talagalay in aan dhaxtaal idinkaga dhigo inta aanan bilaabin ka hor qisooyinkeena tixanaha inoo ahaa waa tahay qisadana waxay ku saabsan tahay gabar indhoolo ahayd jecel xad dhaaf ahna u qaaday wiil ay saaxiibo ahaayeen qisadani waxaa la sheegaa inay dhacday 1908 yacni qarnigii hore waxayna ka dhacday dhanka iyo Yurub waxaa jirtay gabar indhoolo ahayd waxa ayna jecel xad dhaaf ah u qaaday wiil ay saaxiibo ahaayeen sida ay tahayna gabadhaasi waxa ay aad u necbeed nolosha oo idil nolosha gabi ahaanteeda ayaba nacday maadaama ay ahayd gabadh indhoolo ah balse waxaa jiray hal qof oo kaliya oo niyadda ay ku dhisan jirtay kaasi oo ahaa wiilka saaxiibkeeda ah oo aadka ay u jecleed wiilkani waxa uu ahaa mid aad ugu dhow mar walibana ka soo agdhowaada garabkeedana taagan kana caawiya dhanka iyo waxbarashada waxa uuna mar waliba ahaa mid niyadda u dhiso noloshana aad u jeclaysiiya sidoo kale asigana waxa uu u qabay jaceyl xad dhaaf ah waxa ayna mar waliba ku fikiri jirtay maalin uun haddii indha ay yeelato in ay guursan doonto oo labadoodana mustaqbal qurux badan wadaagi doonaan intaasi kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu qof imaado kadibna uu ugu deeqo indhihiisa markii waxaa loo kaxeeyay dhanka iyo isbitaalka indhihii qofkii lahaa ayaana loo geliyey kadib waa ay caafimaaday markii ay isbitaal ka soo baxday waxa uu imaaday saaxiibkeedii in muddo ah la joogi jiray mar walibana garabkeeda taagnaan jiray jeclaana in uu ayada ka farxiyo markii ay sida u aragtay ayay hal mar naxday waxa ay ka naxdayna wax kale ma ahan waxay aragtay saaxiibkeeda oo misana indhoolo asagana ah aad bay u yaabtay waxa ayna isweydiisay saaxiibkaaga intani oo idil indhoolo miyuu ahaa sidoo kalena miyuu kaa qariyey inuu indhoolo ahaa kadib waxaa dhacday wiilkii saaxiibkeeda ahaa in uu u soo bandhigto guur waxa uuna dhahay diyaar ma u tahay labadana inaan is arosno markiiba inta aad u wareertay ay waxay ugu jawaabtay maya diyaar uma ihi wiilkii aad asigoo u niyad jabsan oo misana oonaya ayuu meeshii ka tagay balse markii uu gurigiisa tagay ayuu qof ka dalbaday in uu warqad u qoro markiiba warqadii markii loo qorayna waxa uu u soo diray saaxiibtiisa waxa ayna aragtay warqadii markii loo keenay misana waxaba ku qoran indhahayga aadkaan u jeclahay ii ilaali saaxiibteyda qaaliga ahaydee aad bay u naxday waxayna ogaatay wax waliba ay samaysay in ay qalad ahaayeen sidoo kalena ay ku fududaatay go'aanka ay gaartay balse nasiib daro waa xili ay wax waliba dhammaadeen intaa kadib waxaa dhacday wiilkii in uu noloshiisa hore u sii wato meeshii uu joogayna uu ka dhaqaajiyo uu meel kale u guuro haddaba asxaabay bal ka warama qisadani jeceyl ee dhex martay wiilkii indhaha lahaa iyo gabadhii indhaha la'ayd kadib markii ay indhaha lahaatayna ay ku jisaartay wiilkii aadka u jeclaa haddaba asxaabay halkani ayay ku eg tahay qisadeenna waxaan rajeynayaa dhammaantiinaba inaad ka hesheen wixii fikirkiina ah qaybta hoose ee commentiga igula wadaaga sidoo kale haddii aadan naga mid ahayn janaalka subscribe dhaho si aad ula socotid wax waliba ee aan soo dhigno haddii aad hore unoola joogtana videoga like inoo saara si ay markaasna dhiirigelin igu noqoto oo aan idinkugu soo badiyo muuqaalo aad u qurux badan waxaan idinkaga tegayaa intaan kaga kulmayno muuqaal caynkan oo kale ah sidaa iyo nabadgelyo maca salaama